السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada Yasma channel. haddii aad horey noola joogtay fadlan ha naga ilaawin like-ta. haddii aad nagu cusub tahayna gambaleelka furo si aad u heshid muuqaalo aad ka faa'iidi doontid bulshadana faa'iido iyo waxtar u leh. insha Allah maanta waxaynu ka hadli doonaa muuqaalkan dhowr cunno oo faa'iidooyin u leh ama u fiican dadka qaba xanuunka loo yaqaano sonkorowga ama macaanka. bulshadeena Soomaaliyeed boqolkiiba 99.9 xanuunkan waxay la ildaran yihiin loo yaqaano sonkorowga ama macaanka ama wax afka qalaad lagu dhaho diabetes mellitus. marka waxaa jirta in dhakhaatiirtu ay kula taliyaan in cunadooda ay kontaroolaan oo aysan cunin cunno kasta, ay ku dadaalaan cunnooyin khaas ah. marka maanta insha Allah waxaan idinla share gareyn doonaa ama idinla wadaagayaa dhowr cunno oo dalkana laga helayo una fiican dadka sokorta qaba. cunnooyinkan guud ahaan waa cunnooyin caafimaad leh oo qof walba u fiican inuu cuno noloshiisa, laakiin qaasatan qofka markuu sonkor uu qabo aad iyo aad bay ugu sii fiican tahay si uu sonkortiisa uu u kontaroolo caafimaadkiisana u badbaadiyo. sababtoo ah cudurka sonkorowga waa cudur aad u dhib badan, qofkana khatar gelin kara noloshiisa haddii uusan kontaroolin ama uusan wax ka bedelin habnololeedka noloshiisa, cuntada uu cunayo, habka uu nool yahay. marka insha Allah mar baynu ka hadli doonaa cudurkan sidiisaba wuxuu yahay iyo sababaha keena iyo sida loola tacaalo iyo dawadiisa. maanta insha Allah waxaan idin soo gudbinayaa cunnooyinka u fiican dadka qaba macaanka ama sonkorowga. qodobka koowaad waxaan soo qaadanaynaa malabka saafiga ah. wax dhib ama lahan qofka qaba sonkorowga ama macaanka uu isticmaali karaa, wuxuuna ku darsan karaa cabitaanka, uu ku darsan karaa shaaha, uu ku darsan karaa xataa malabka laftirkiisa marmar qaado uu ka qaadan karaa, qaado yara. yacni malabku wuxuu ku bedelanayaa booskii sonkorta caadiga ahayd buu ku bedelanayaa. waayo anagu markaan cabitaan iyo shaah aan sameysanayno sonkor caadi ah ku darsanaa, inkastoo sokortu aysan ba caafimaadka u wanaagsaneynba. qof xanuunsan iyo qof aan xanuunsanayn sokortu caadiga ah iyada waxay ka mid tahay waxyaabaha looga digay dadka oo la dhaho nolosha ama sideeda waxaa jira 3 waxyaabood oo aan u fiicneynba, waa sonkorta badan iyo milixa badan iyo saliidda badan. marka dadkan sonkorta qaba 3daas waxyaabood aad iyo aad bay u saameynaysaa inay iska yareeyaan ama iska joojiyaan, aad bay u fiican tahay. marka qofka sonkorta qaba waa laga maarmaan in uu totally iska joojiyo sokorta, booskii sokortan uu gashto malabka. wax walba uu ka rabo macmacaansi yara oo jirta, hadday noqon lahayd shaah ama cabitaan ama iska macmacaan, hadduu ka rabo waa inuu malabka ku darsadaa oo booskii uu ku bedeshaa sokorta. qodobka labaad waa kalluunka runtii faa'iidooyinkiisa lama soo koobi karo. waxaa jira kalluunka caadiga ah oo malayga oo intii la shiilo la soo gato isagoo caadi ah, iyo midka daasadaha lagu keeno dukaamada iyo moolka iyo laga helo. marka kalluunka hadba kii aad helaysid faa'iidadiisa lama soo koobi karo, aad bay u fiican tahay. dadka la ildaran macaanka waxaa u fiican in asbuucii 3 ilaa 2 mar ay isticmaalaan malayga ama kalluunka hadba kii aad helaysid meesha aad joogtid. qodobka saddexaad waa timirta iyada laftirkeeda faa'iidadeeda lama soo koobi karo, aad bay ugu fiican tahay dadka qaba sokorta. inkastoo ay maalmahan jiraan warshado sameeya timir iyo sonkor la isku qooshay oo aad iyo aad u dhibaya dadka qaba sokorta. marka mar walba timirta markaad soo gadanayso waxaad raadisaa timir saafi ah oo dabiici ah oo timirtii la yaqaanay ah. qofka qaba sonkorowga hadduu ilaa dhowr xab maalintii sokorta uu ka cuno timirta wax dhib ah kuma keenayso. qudaarta noocyadeeda oo dhan laba kala saari, ayu qudaar nooc walbo ay tahay aad iyo aad bay ugu fiican tahay dadka qaba sonkorowga, iyo guud ahaanba qof walba inuu qudaar isticmaalo waa laga maarmaan. dabcan cunooyinkan hadda aan sheegayo inta harsanba waxay u tahay doorashada koowaad dadka qaba sokorta.
inkastoo qof walba oo maaragtay ay fiican tahay inuu cunadiisa isku dheeli tiro oo iska ilaaliyo cunooyinka. Ma anagu haddaan Soomaali nahay, cunada aan cunno 100% waa cunno u badan carbohydrate, oo meeshii waxaa ka baxaya cunadii ay ku badnaayeen proteinskii iyo mineralskii iyo vitaminki. markay booskii ka baxaan isku dheelitirnaantii cuntada, dabcan cilad baa imaanaysa. marka aad iyo aad bay u fiican tahay in cunada aan cunayno maalin walba aan isku dheelitirno dhammaan sheeg ay ka kooban tahay qaybaha kala duwan ee uu jirka u baahan yahay, haddii ahayn lahayd protein, vitamin, mineral, carbohydrate. sababta ah jirku kama maarmo waxyaabahaas oo dhan. hal shay haddaad jirka u badisid cilad bay keenaysaa. marka in la isku dheelitiraa dhammaan baahiyaha jirka uu baahan yahay. sida aan la socono waxyaabaha keeni kara qofku inuu sokorta maaragtay ay xaddigiisa ama levelka sokortu ay ahaato mid aan badnayn, aanan yareyn, waxaa ka caawin kara inuu cunooyinkan joogteeyo oo iska yareeyo carbohydrate-ka. yacni dadkeenu badanaa waxaad isticmaalaan bariiska, baastada, waxyaabahaas waxbay carbohydrate ku badan yahay oo aan faa'iido u lahayn qofka qaba sokorta. marka bedelkiisa uu ku bedelan karo cunooyinkan kale isku dheelitiran oo proteinski iyo vitaminski, mineralski, aad bay u fiican tahay. qudaarta sida bagalka, yaanyada, saladada, ansalaatada, afakaadhada, xananaaska, mooska, qaraha. yani qudaarta markii qodobka qudaarta wax u kala baxsaa fruits iyo vegetables. fruitska waxyaabahan maaragta ka kooban oo tufaaxa oo kale, cambaha, mooska, babayga. vegetableskan oo wixii cagaar oo dhan soo gelaya, ansalaatada, salarka, koostada, qajaarka. marka adigu qudaarta aad helaysid dhan iyo wixii aad heli kartid inaad qudaar isticmaashid waa lagama maarmaan. qodobka afraad ama shanaad, cunooyinka galka leh. cunooyinka galka leh aad iyo aad baa wadankeena looga helaa. waana cunooyinka ugu fiican runtii xagga caafimaadka dadka qaba sokorta. cunooyinkaas galka leh waxaa kamid ah galeydii, masagadii, bariiskiiba, waxaa soo hoosgelaya digirtii, waxaa soo hoosgelaya sareenkii, sharuurka, burukaha iyo waxyaabaha galka leh oo aad ugu fiican caafimaadka qofka qaba sokorta. sidoo kale waxaa muhiim ah qofka qaba sokorta inuu iska ilaaliyo waxyaabahan ay ku badan yihiin macmacaanka sida xalwada, buskudka, keega, doolshaha, cabitaanada ay ku badan yihiin sokorta guud ahaan, iyo cunooyinka culculus ee ka sameysan waxyaabahan la dhaho junk foods ama cunooyinka aan caafimaadka u wanaagsaneyn ee banaanka laga soo sameeyo sida pizzaha, hamburgerka iyo waxyaabahan loo yaqaano sandwicheska ee lagu shiilo saliida badan iyo milixa badan. insha Allah muuqaalkeena maanta intaas buu ku eegyahay. waan filayaa inaad ka faa'iiday. insha Allah waa inoo videoga ama muuqaalka xiga. insha Allah waxaan idinkaga tegayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fadlan haddii aad ka faa'iiday waxun sii share gare si ay dad kale uga faa'iidaystaan. insha Allah waa inoo muuqaalka soo socda.